We gather here today with heavy hearts to honor and remember our beloved colleague and friend Abdurrahman Adan Mahmoud. waxaan halkan isugu nimidnay inaan ka qayb galno taasida ama aaska saaxiibka Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud oo shaqo wadaag ahay waxaan halkan ka xusayaa shaqadiisii iyo raadkiisii wanaagsanaa ee uu nagaga tagay dhamaanteeba 15 sano ee la soo dhaafay waxa uu dadaal dheer waqtigiisa u galiyay sidii uu shaqadiisa iyo dalkiisaba wax ugu taari lahaa ka maamul ahaan Cabdiraxmaan waxa uu ahaa rajada iyo awoodda dad badan shaqadiisuna shaqo umay ahayn Cabdiraxmaan waxa uu ahaa shakhsi ka balaaran inaynu niraahno waxaan ahayn shaqo wadaag waxa uu saaxiib la ahaa in badan oo inaga mid ah naxariista adkaysiga iyo habfikirkiisa qof kasta oo la kulmo waa uu ka dhaxarkayay Cabdiraxmaan aragtiyihiisa waxa uu ku gudbin jiray si xigmadaysan waxa uu ahaa qof laga garanayo laga tixgeliyo laga ixtiraamo lagana jecel yahay hadba bulshada uu ku dhex jiro qoraaladiisa ama xigmadihiisu waxay noqon doonaan kuwa dhiiri geliya ama nahaga Cabdiraxmaan joogteynta uu joogteynayo shaqadiisa iyo jacaylka uu u qabo bulshadiisa waxa cadayn u ahaa waxa uu qabtay dhimashadiisuna waa mid taabanaysa Somaliland iyo inta ka baxsanba anaga oo ah Habitat Family waxaan leenahay xaaskiisa hablihiisii iyo dhammaan qoyskiisa waxaad ogaataan inaanu idin garab taaganahay idin lana qaybsanayno murugada isbeddelka wanaagsan ee uu adduunka korkiisa uu kaga tagay iyo xasuusihiisu waxay ku noolaani doonaan qalbiyadayada Cabdiraxmaan maanta maca salaameynay balse waxaan xasuusnaani doonaa iftiinka uu nolosheena ku soo biriyay hanaan ku sharafna wax lagu xasuusto astaamihiisii wanaagsanaa allaha uu naxariisto Cabdiraxmaan weliga ma noqoni doontid qof la ilaawo waxa sidaas yiri Master Grace oo ah madaxa hay'adda UN Habitat ee Somaliland oo ay soo wada shaqeeyeen alla naxariistii jannaha ka waraabiyay Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud oo maalintii shalay lagu aasay magaalada Boorame